Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Soomaali Banaadir TV. Qodobada wararkan ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya kulan degdeg ah oo la isugu yeeray saraakiisha hay'adaha amniga. Waxaa kaloo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan oo aan ku soo qaadan doonaa ciidamada xoogga oo howlgallo wada furis ah ka bilaabaya Hiiraan. Qeerro oo booqday dhaawacyada la geeyay isbitaalada Muqdisho. Ciidamo gaar ah oo lagu wareejiyay amniga Garowe. Sidoo kale waxaa Muqdisho la keenay ciidamadii ilaalin lahaa doorashada 2021. Qodobadaas ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka inta uu socdo. Waa hagaag dhegeystayaal, intaas waxay ahaayeen qodobada wararka ugu darkorona. Iminkana ku soo dhawaada isagoo fidsan. Sidaad warka ku maqleyseen, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeyagaasi Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa furay shir looga hadlayo amniga guud ee dalka iyo dib u habeyn lagu sameynayo tayada ciidanka ee qorshaha sanadka cusub ee 2020. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay inta badan saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed, kuwa maamul goboleedyada iyo saraakiil kale, waxaana lagu qabtay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka kulanka uu yahay in iska wareystaan halka uu marayo amniga dalka, dhibaatooyinka ay qabaan ciidamada iyo caqabadaha jira. Sidoo kale waxa uu sheegay inay kulankan uga hadli doonaan sidii saraakiisha ciidamada booliiska dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada wada shaqeyn buuxda u wada yeelan lahaayeen, maadaama amniga dalka uusan lahayn xuduud. Dhammaan saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayuu sheegay in ay waajib ku tahay ilaalinta amniga iyo caqabadaha ee dadka shacabka ah. Dhinaca kale, kulan looga hadlayay amniga ayaa waxaa lagu qabtay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan, waxaana kulanka ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle iyo taliyaha ururka 14aad guutada 5aad qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Dhame Cabdiqaadir Cali Nuur. Sidoo kale kulanka ayaa waxaa ku sugnaa saraakiisha ciidamada dowladda, kuwa AMISOM, maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka degmadaasi. Mas-uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo furi lahaa wadooyinka ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka tirsan degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Dhame Cabdiqaadir Cali Nuur ayaa ah taliyaha ururka 14aad guutada 5aad qaybta 27aad oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhowaan Al-Shabaab laga saari doono degmada hoostagta degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ay qorsheynayaan sidii ay go'doonka uga qaadi lahaayeen degmada Buulaburde. Waxa uuna dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay hub la siiyo kooxda macawisleyda oo Al-Shabaab kula dagaalamaya degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay in degmada Buulaburde la xoojin doono amnigeeda, isla markaasna dhowaan Al-Shabaab laga saari doono deegaanada hoostagta degmada Buulaburde, isagoona sheegay in haatan degmada ammaankeedu uu yahay mid aad u wanaagsan sida uu hadalka u dhigay. Magaalada Buulaburde ayaa go'doon ah tan iyo markii ciidamada AMISOM ay la wareegeen, waxaana magaalada sahayda lagu gaarsiiyaa dhanka cirka oo keliya. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weerar ku qaaday magaaladaasi. Geesta kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa booqday isbitaalka Erdogan X Digfaar oo lagu daaweynayo dhaawacyada weerarkii Al-Shabaab ay la beegsadeen injineeradii Turkiga ahaa iyo ciidamada amniga ee ku howlanaa dhismaha wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afguye. Maamulka isbitaalka ayaa Ra'iisul Wasaaraha ugu warbixiyay xaaladda dhaawacyada, isagoona sheegay in xilligan ay ku dadaalayaan xaaladooda caafimaad. Dhaawacyada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ballan qaaday in dowladda ay la socon doonto xaaladda caafimaad dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afguye. Wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo degmada Afguye ayaa inta badan waxaa qarax lagula eegtaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo AMISOM, kuwaas oo khasaaro ka soo gaarta. Waa hagaag, iminka waxaad nagala socotaan Soomaali Banaadir TV. Waxaynu dhexda ugu jirnaa barnaamijkeeni iminkana Garowe.
magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay guddiga nabadgelyada gobolka Nugaal iyaga oo kulankooda uga hadlayay xaaladda amni ee gobolka. Maamulka gobolka Nugaal ee Puntland ayaa kulanka kaga dhawaaqay in maanta oo Isniin ah amniga magaalada Garowe si ku meel gaar ah loogu wareejiyay ciidamo isku dhaf ah oo ka socda kuwa BMPF-ta iyo BSF-ta iyo ciidanka madaxtooyada Puntland. Guddiga nabadgelyada gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka booliiska gobolka Nugaal ay haatan ku wadaan in dib u habeyn lagu sameeyo isla markaasna taasi ay keentay in amniga Garowe ku wareejiyaan ciidamo booliis ah. Sidoo kale guddiga ayaa shirkooda waxa ay ku go'doomiyeen in baraha koontaroolada ee laga soo galo magaalada Garowe si degdeg ah loo geeyo ciidamada ka socda BSF iyo BMPF-ta iyo ciidanka madaxtooyada isla markaasna la geeyo halka loo asteeyo. Ugu dambeyntii guddiga ayaa shirkooda ku sheegay in ay si wadajir ah ula dagaalami doonaan dadka amni darrada ka wada gudaha magaalada sida kuwa magaalada hubka soo geliya iyo kuwa isticmaala ama ka ganacsada maandooriyaha khamriga iyo xashiishka. Waa hagaag daawadayaal weli waxaynu dhaxda ugu jirnaa barnaamijkeeni iminkana ciidamo laga keenay dalka Nigeria ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu biiriyay booliiska AMISOM si ay uga mid noqdaan ciidamada ka qayb qaadanaya ilaalinta amniga doorashada Soomaaliya. Ciidamada oo tiro ahaan gaaraya ilaa 130 askari ayaa dhawaan qaatay tababar la xiriira dhinaca amniga doorashooyinka waxaana dalka Nigeria uu noqonayaa dalkii ugu horreeyay ee tirada ugu badneed ku biiriya ciidamada booliiska AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. Taliyaha booliiska ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ahna ku-xigeenka kormeeraha guud ee booliiska ayaa ku biiriyay 130 askari oo dhawaan laga soo diray waddanka Nigeria in ay u shaqeeyaan si hufan una gutaan waajibkooda si waafaqsan shuruucda iyo qawaaniinta AMISOM. Taliyaha guud ee ciidamada ka socda Nigeria Ahmed Gani ayaa ugu mahadceliyay kooxda hoggaanka sare ee booliiska AMISOM abaabulka iyo tababarka ay qaateen oo uu ku sheegay inuu ahaa mid wax ku ool ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadani ay in ka badan sanadka kaliya ay joogi doonaan Soomaaliya isla markaasna ay ka qayb qaadan doonaan amniga goobaha muhiimka ah sida kulamada doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Si kastaba Soomaaliya ayaa waxaa xilligan ku sugan ciidamo lagu qiyaasay in ka badan 2,000 oo ka tirsan booliiska AMISOM kuwaasi oo ka kala socda wadamada Uganda, Kenya, Nigeria, Ghana, Zambia iyo Sierra Leone. Waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni waxaad kala socoteen Soomaaliya Banaadiro TV.